shirkani dhaqan ee lagu magacaabo Samatalis isla markaana ay wada yeesheen laba ka mid ah beelaha ugu tunka weyn le beelaha deegaanka Somaliland waa mid ka mid ah dhacdooyinka dhaqan ee ugu saameynta iyo miisaanka culus ee ka qabsoomay gudaha Somaliland shirkani oo ka qabsoomay Hotel City Plus ay magaalada Burco ay ka soo qayb galeen erga dhaqameed miisaan culus leh oo ka kala yimi gobolada dalka kuwaasi oo metelaya labadani beelood ee dhaqameedka ku yeeshay magaalada Burco ugu horreyn waxa goobtani ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta beesha martiqaadkani dhaqan fidisay kaasi oo ugu horreeyo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo ah suldaanka guud ee beesha gogashani dhigtay iyo Suldaan Maxamuud Guuleed kuwaasi oo sheegay in muddada shirkan uu soconayo uu ka madax bannaan yahay siyaasad balse ay abaartiisu tahay sida ay deegaamada ay labadani beelood wada degaan looga shaqayn lahaa amniga nabadda isku xirka dhaqan dhaqaale iyo isku dhawaanshaha bulshooyinka deegaanta iyo dan wadaagtaba waxaana ka mid ah hadaladoodii kan horeysa shirkan dhawaaqii hore aan dhawaaqayna waa maqlaysay hadda waxaan leeyahay shirkan shir siyaasadeed waa shir dhaqan maba jireen ninkii wadaga guntiga ku sitay siyaasadu halkaaga iskaga hayso shirkaasu shir magac reeba oo Soomaaliland wax tara inuu noqdo inana dad lama hadiyo aynu noqono shirkan waxa suldaanku tilmaamay ujeedada iyo waxa aynu ka beeynaa waxa weeye waa inaynu ku abuuro oo ku samayno nolosheenii dib ugu soo noolayno ku abuuro jawi walaalnimo ehelnimo wada noolaansho wax wada yeelasho iskaashi sidoo kale Suldaan Maxamed Cabdi Qaadir iyo Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar oo ka mahad celiyay habka iyo hanaanka agaasinka shirkan ayaa sheegay inay shirkani ka soo bixi doonaan qodobo muhiim ah oo wax ku ool ah muddada uu shirkani socon doono waxaana ka mid ah hadaladoodii anigu weli ma tagin shirka weyn mana iman hore uma dhicin waana shir loo baahnaa wixii laga wada hadlana taladeedu waxay tahay in la qaato oo si daacada loo noqdo oo daacadnimo aynu wax ku wadno dadka arrinka ka dhexeeya dee mid siyaasi u maahee mid dhaqan baa ka dhexeeya haddii aan shirka iyo itijaahiisa iyo wax ka yara taataabto marka hore horta ilaahay baa mahadaan kadib waxaan mahad ka celinayaa oo aad iyo aad uga mahad celinayaa beelahan haba jeclo ee shirkan soo qabanqaabiyey quruxda badan leh ee gogashan iyo miisaankan iyo milgahan maamuuskana maxay keenay wax waliba waxbay ka horeeyaan siyaasadda marka salaadiin ahaan aanu leenahay yaa siyaasad la gelin oo maxay lagu sii tafin ujeedadu waxa weeye bal horta marka hore labadan beelood ee ballaaran ee dhulka badan wada degan in iyagu ay noqdaan oo nabadoogaan oo xurgufta yar iyo wixii meelaha ku jira horta ay ka bogsadaan sidoo kale yara waxa goobtani ka hadlay madax dhaqameed cuqaal wax garad kale oo ka soo jeeda labadani beelood ee shirkani dhaqan ee Samatalis ku yeeshay magaalada Burco iyagoo ugu dambeyntii halkaas lagu doortay xubno guddi farsamo ah oo ka kooban labada dhinac kuwaasi oo majiiraha u hayn doona muddada uu shirkani dhaqan socon doono waa Cabdi Samed Axmed Yuusuf telefishinka caalamiga Universal magaalada Burco